Bismillahirrahmanirrahiim. Daawadayaal kulanti wacan oo wanaagsan. Waxaad ku soo dhawaataan kulan ciyaareedkii xiisaha badnaa ee naadiga Barcelona ay xalay garoonka Camp Nou ku soo dhaweysay naadiga Leganes iyo natiijadii ku soo idlaaday. Barcelona ayaa ku soo laabatay hoggaanka 5 dhibcood ee horyaalka La Liga kadib markii ay 2-0 ku garaaceen kooxda Leganes oo marti ku ahayd garoonka Camp Nou. Inkastoo Barcelona aysan soo bandhigin qaab ciyaareed lagu riyaaqay, haddana gool uu qaybtii hore dhaliyay da'yarka la yiraahdo Ansu Fati iyo gool rigoore ah oo uu saxiixay Lionel Messi qaybtii labaad ayaa u xaqiijisay guusha muhiimka ah oo ay 5 dhibcood ku hogaamiyeen kulanka horyaalka La Liga. Blaugrana waxay haatan 5 dhibcood hoggaanka uga hayaan kooxda Real Madrid, kuwaas oo Khamiista martigelin doona naadiga Valencia. Leganes waxay iyaduna natiijadan ku sii heynaysaa kaalinta ugu hooseysa horyaalka iyagoo leh 23 dhibcood oo qura. Barcelona ayaa ugu dambeyn hoggaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 42aad waxaana gool u seexay 17 jirka Ansu Fati lagu magacaabo. Ansu Fati ayaa caqabado kala kulmay waa 5 difaac ee Leganes, laakiin fursad yar uu helay markii uu Julian Firpo xidiga la yiraahdo argagax ka soo sameeyay garabka bidix iyadoo 17 jirkan uu shabaqa ka toogtay meel 18 kiiloomitir jirta goolka. Lionel Messi ayaa isagu u istaagay rigoore isagoo dhinac qaldan u diray goolhaye Sulier isla markaana hoggaanka Barcelona ka dhigay 2-0. Waa goolkiisii 21aad ee xilli ciyaareedka, sidoo kale waa goolkiisii 699aad ee waayihiisa ciyaareed. Hal gool oo qura ayuu u jiraa in 700 oo gool xirfadiisa uu dhaliyo Lionel Messi. Ciyaarta waxay ku soo dhamaatay 2-0 oo ay Barcelona ku badisay, kuwaasoo haatan 5 dhibcood ku haya hoggaanka La Liga, inkastoo kooxda kaalinta labaad ee Real Madrid ay Khamiista la ciyaari doonto naadiga Valencia ee horyaalka Spain iyaduna ka ciyaarta. Guud ahaan waa naga intaa daawadayaal kulan ciyaareedkii xiisaha badnaa ee Barcelona ee natiijadii Leganes ka soo baxday. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo.